aniyaku maanan kaalay haye kalsooni siisay kaalaman aniyaku maanan kaalay kalsooni siisay kaalaman warninkii hela talawaan hele dhelalala maqal waanadu waxyeelada u diid wariyaha haqdhoor aryaadaha taqliintii wariyahan maqlaahe ma wariyaa la dilay war mal dilna aroosa gali wariyaaga war aroos loo mashxaradiyo mayd lagu baroortaa miska reerka wadayaal isla maalin gelinkeedaa layidhiye matiibaa macnuhu arooska wariyaha waan maqalnay yaa dhintay aryaadaha war ma haysina warka dalaqays ka soo dhihina naga war suga ununka wariyaa aroos xafladii arooskana wariyaha xaq dhowr heeste aheedaa laga shiday ummadiyoo dhan waa yaabtay aroosaa laysku ogaayo tacsiyaa u soo baxday muga waa yaabe wariyaha xaq dhowr iyo aroos xaa isu keenay waaba kala fog yihiin war heesku dardaaran buu ahay gabadhaana lagula hadlayoo lalahay ninkaagan wariyaha xaq dhowr war wariyaha xaq dhowr jabhadaha wariyayaasha dilaa loola jeedayey aroosaddu ma jabhad bay ahayd intay ku hureen ninkeeray la jabhaday haysaa war horta ummaddu waa kalamaan anigusa waxaan dhihi lahay haddii aadan amxaaroy qarbigoohin kula yaacin dekad cadala waa mudan tahayo duqaha loo sheego qarqarsiga nin rag ayaa ku xiray dumarna qiimeeyey fataaloo dhan saakaa rasaas loola fiirsadaye sawaariikhdu meeshaan la rabay waa ku socotaaye kordhiyay karaamaad bulshada uga kasbaysaane ururshaha kacaankiiyo maxaa odaga kuu geeyey intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin horta waa liyuba waali ka daranaan maqli jira bal ninkaas wuxuu isu soo jiijiida bugaan maqasheen qalbigu miidin jiijiidmay warninkaan waxaan u maleeyey inuu gabaga 4.5 ku qaybiyey war anigu waxaan idiin hayaa waxaad ka hadasheen oo dhan wax ka duwan horta dadku waa kala maan wuxuu yidhi waddan uu qalalaasiya dagaal qayrkii ka reebay haddii aad xil u qaaddo oo dadka aad qancin weyday dacwad kuu qabsadaan adigaa qahar doontaye isqabooji walaal ninkii qaan bixi waayana bilayskaa qaban doona adu talow akhbaartu noo sheega miyay ka mid tahay niba sii baariyaysaa xaggaa ee garan maayee irdeen xidhnaawadda maa laga qaaday adeer marka hore naso aryaada odagu qaylo badnaa adigoon iswareerin horta aalyar fadhiiso adduunyaa diidda intaas war bakaaro miyaa ka xamaalaysa war hibil meel hege waa ka dhimidi hibilawna meel ka sii hegayto ka dhimidi hibilawna hoostanga ka dhimidi hoob isin dheegdaan ariiri aadi oo jeeyan iyonay walilay hunguro aga war muxuu ku hadlaa wowgila gubka war luqadiisa yaa gartay war yaa alihi allayahooniga laga qabta inanka sheegtay abii iyo ka kaloo afaweerka awgeennii ismaaciil iyo ordogaankii adkaaday ma ku iibsan karraa intaasi wayga su'aale lanyaw ana dadla gadaw iyonay dawladla shalgadawba ma aragnee ulajeedadaaf safaylama hangadayto aryaadaha shirka batroolka ayaamahan murunkiisu taagnay sirtiisa waa la fashilay wasiirkii batroolkana wariya haaruun macruufaa wareestayo sidau u doocdoocihaayo xogtii uu qarihayayow ka soo saarow bannaanka ka soo dhigay wuxuuna yidhi shirkadda shirka qabatay ayadaa batroolka noo gedaysa waxayna saamiyahaan u leedahay 50% walax ka yar hadda walaxaa la gadaa leeskuma ogayna walaxaa la soo bandhigaha leesku ogaaya ma ogisay tahay alla ilaahay abdilo hoosaas eeta eebay ta'al olkunu tubaaka laangan jabi wasiirka batroolka cabdirashiid miyaan hadda ka hor loo sheegin in wasiirkii ka qabto haaruun macruuf telefoonka oo xilkiisa ku weynayo war hadda wasiirka xilkiisa qalqal ugu jira miya kaasu ra'iisul wasaare khayray u talbina u dayhayo minuu xilka ka qaadayo shibna gadhaha warnimada waxaa la yidhi arrintii qarsoonayd haddii dibadda loo saaray soo wasiirka batroolka iyo khayra noqon mayso kollayba waxaan hubaa inaan khayrra isku barbaryac ogolayn warheedhaha war ma haysiine dadku waxay leeyihiin degmooyinka hiliwaa yaaqshid iyo dayniile iyo inta ka dhexaysa afgooye iyo xamar iyo balcad iyo afgooye inta u dhexaysa xal ma loo waayey waxay dadku leeyihiin dalku ciidan badana haddana cadow ku dhuunto wax dilaya badana war maahana waa abwaan cabdidhuux ninka yidhi abni taaman lama helin jannaduna tira male war waxay dadku leeyihiin saldhiggii basroon dumin labada dacal shabeelliyo muqdishow degi mayso war waxay dadku leeyihiin qaranka somalilan maa taageertaan xaggaasaa nabadee war
adiga saa'id aw daalanta war go'an hayna wiigla gubyo aan ku warramo jigjiga iyo kismaayo labaduba waa nabade hal taageeraa la leeyahay sababtoo ah al-sayid axmed madoobe yaa ka taliyo kismaayo oo balaayo kuma soo hoos dhuuman karto mindha al-sayid ra'iisul wasaare sheekh maxamed shaakir balaayo ku soo hoos dhuuman karta goorba al-sayid madaxweyne waara cadow ku soo hoos dhuuma kara war cabdullah waa ceebowday burundiyu darfaha ku dheganayo laha naga tiginina warnimayaw meel nabad inna hariisay oo bafaasan bay dhawajanaaya seenasan taasna ma in daliil ee widaadkii sheekeeyay hay halis efiyo araay muhaadarad ku gobadaay muqdisho bay dhawajanaaya oo basaadi buloon dheelo gali wadaadku maxaafadiisu tago waa ka baydhabo banooniga ku ciyaaraya sheekhaanahay hallees cafiyaan leehay banooniyaana dheela arooya sheekhu soo isu waafajiyeen war sheekh cabdirashiid allah u naxariistay qasiidadiisa waxaa ka mid ahayd cilmi barasho iyo cayaar kala foge waa ceeb inaad hadbacayn tahay war sheegay haadoy ama shariifii haadoy lankii basar wal gaaban wadna qamiis iyo tikakeeyo haba balooni dheela alamiinta ay soo biimay taas iyo eebaha wareedha kala maanay siyaasiyiinta diira jirteen culimadiina ma ku darteen soo ma aadan dhahayn axmed jaakad waxa uu yiri arrimaha bulshada kama hadashaan aryaadaha gabarti koongareeska maraykanka ka mid noqotay ilhaan cumar odagi taraamahay waa ka cabaad siisay asagaa twitterka wax ku qori jira iyaduna hadday waxay ugu qortay yuhuuddu dhibaataday ku hayso falastiin caalamku waa ka hurdaa hadda odaganya adkaysa waayo waxa uu yidhi ilhaan hees casisho war soomaalida talada iyo tawfiiqda ka habowsane cid ka raganimo badan ma jirto waxaana kaaga filan gabadhii ilhaaneed waa taa odagii taraamaha ka qaylisiisay oo indhaha faraha ka gelisay weliba waxaan kuugu darayaa gabadhii u horraysay ee dayuurad kicisa qaaradda afrika inay ahayd gabadh soomaaliyeed oo guulo barda ku dhalatay oo la yidhaahdo asli cabaade war nin soomaaliya hadda wuxuu ka mid noqonayaa baarlamaanka midowga yurub yaa isaguna madaxweynaha midowga yurub ha ka cabaadiyo war ninka maxkamadda adduunka haysta cabdiqawi baa la yidhaahdaayo waa soomaali wix alla wixii dembi gala adduunkaoo dhan isaguna ha kaga cabaadiya dee war cabdiqawi hadduu nin raga yahay baddayna kenya nagu haysato ha noo xukumo anuu soomaaliyaan aqaanaayo waad u eexatay yaan lagu odhan isagoo isleh inuu xaqayaga kenya u xukumaan ka baqaya war ra'iisul wasaare khayre 600 oo askari oo boolis ayaa tababar maanta u soo xiray kuwaasoo la doonay inay sugaan amniga magaalada muqdisho meeqaa horey tababar loogu soo xiray minay amni sugaayaan war maanta u dambaysa 3 qaraxa magaalada ka dhacday aaway amnigay sugayaan aga war ballinka hadalkiisa day war amniga waxaa mas'uul ka ah shacabka ku nool magaalada muqdisho iyagaa la doonayaa inay amniga sugaan war amniga Soomaaliland waa sugan yahay ordo qarracda nala dhaaf idinku war xaafadaha muqdisho wax ka dhacdacaanood sheegaysaane ammaanka madaxtooyadu waa sugan yahay wax soo gali karana la arko war anigu war baan idiin hayaa gudoomiye degmaan la soo wacay oo qurbaha ka yimid waxa la yidhi gudoomiye xageed soo maraysaa wuxuu inoo degmadii aan mas'uulka ka ahaa baan dhex marayaaye meeshaan maraya sama aqaanee bal darawalkaan idiin dhiibayaaye isaga weydiiya qoodhiin iyo xeradiin ma ninkaa xilka loo dhiibay ee degmada mas'uulka looga dhigaad u malaynaysaa inuu dadka khayr u soo wado kaasoo kalaa laga raadinayaa amnigaan ka hadlayno haanaasado ani gorode langolodka dhuuriya ma in goro jireen kalini manaari aryaa amnigiina idinku sugta war adeertaa ku jira weligiinba war dawlad been sheegayso mucaaradka nacab ilaahay qoorteedin ma gado abkiina laaku meel fiican haydi geeye